بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي wanaagsan waa xalqad cusub iyo barnaamijkii Mangadol oo aynu ku gorfaynayno maanta mowduuc xiiso badan oo aynu kaga waramayno horumarka iyo dib u dhaca sidii caadadeynu ahayd ba waxaynu ku wada fadhinaa waxa weeye waa Ridwaan Cabdiraxmaan waa Liibaan Maxamed iyo Cabditax Umar iyo aniga Saad Cabdiraxmaan mowduuca maanta ka warmayna waxa weeye horumarka iyo dib u dhaca waxa jira badan sawir la inoo sawiro oo ah in caalamka loo kala qaybiyo dunida maanta saddex dunida hore iyo dunida dhexe iyo dunida saddexaad oo badan ay noo sheegay inay dunida hore horumarsan tahay labadan kalena ay ka milanaysaa dambeeyaan xagga horumarka maanta waxaan isweydiinaynaa sawirka badan la inoo soo gudbiyo maxaa ka jira haddii ay wax ka jiraana maxaa laga hormaray labadan caalam ee kale laga hormaray si maxay ku gaari karayaan dunida horumarta iyadu caalamka koowaad lagu sheego marka koowaad bal waxaan isla eegi doonaa waa maxay horta horumar waa maxay dib u dhac bulsho markaynu sheegno way horumarsantahay bulsho kale aynu ku sheegayno dib u dhacsantahay waa maxay waxaan aynu ku kala garanayno intaasna horumarsan tahay halkan kale naga tusiyay bulshada kale maxay ahayd dib u dhacsantahay mawduuca waxaan la wadaagi doonaa Ridwaan soo dhawaad Ridwaan بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ما حسنتي سهيب horta mawduucan maanta waa mawduuc aad u xiiso badan kulli wax badan oo aynu filinaynay inuu ahaan jiray de waxyaabo aynu u baranay inuu caalamka ka socdo oo waxa soo horumarsantay bulshada soo bulsho horumartay oo bulsho tagtay bulshada soo bulsho dib u dhacday waa reermi waa eriyo badan oo de liidasho tilmaamay iyo eriyo badan oo ammaan tilmaamay ayuu kitaabka ay fikradan ay maanta aynu ka hadlaynaa ay xooga saaraysaa bal maxay ka yimaadeen xagay sabligaysaa horta bulsho marka la leeyahay oo horumarsantay iyo dib u dhacsantay waxa la isla waafaqsan yahay bulshada in laga eego lix dhinaca horeysa in dhaqaalaha bulshada la eego dhaqaalaheedu ma dhaqaale isku filan ba ma dhaqaale ay u baahan tahay dhaqaalaha heer isku filnaansho iyo heer ay ummadda kale wax u tartama gaadhay horumarkeeda horumar bulsho horumar qoys horumar qofeed horumar wadooyinkii dhismayaashii tii xadaaradda madiinada ahayd horumarka ma gaadhay aqoon iyo teknolojiyad halkay gaadhay bulshadaasi xorriyadda qofka bini'aadanka ku dhex noolay intuu gaarsiisan yahay iyo intuu xorriyad qofkii leeyahay xuquuqda insaanka ama xuquuqda bini'aadanka ee bulshadaas laga dhex qadeeyaa waa intee la tahay waxyaabaha dambiga ee bulshada xuquuqdoodii dee ku tacadiyaya intee laga qabtaa bulshada dhaqan ahaan iyo akhlaaq ahaan intay ay dhaqankeedu uu fiican yahay oo dhaqan bulsho iyo ummad iyo bini'aadanka guud ahaanba wuxuu taraya uu noqon karaa horta lixdaa qodob ayaa tiir baa wax lagu qiyaasaa see bulsha loo odhan karaa way horumarsan tahay iyo way dib dhacsan tahay haddaba taa markaynu ka soo gudubno tan imika caalamka taagan ee caalamkeenan joogtaa waxa weeyaan waxaa lagu qiimeynayaa hadba waxa qiimihii cidda qiimeynaysa ee gacanta ku haysa qiimeynta ayay ku xidhan tahay lixdan qodob siday usoo kala horreysiinayso caalamka markii horeysay dowladahan imika dee la yidhaahdo dowladaha horumaray waxay caalamka ku qabseen xoog iyo awood ciidan iyo awood caskariya oo tii isticmaalka ahayd ay u horreysay ay ka dambeysay awoodahan dambe imka soo baxay dee maraykanku imka ugu horeeyo tii ruushka oo hoos u dhacday ta maraykanka xoog socota China hoos soo kacaya marka hore waxay ka bilaabeen isticmaalku wuxuu ka bilaabmay awood ciidan oo xooga oo ummadu ku qabsaday dhaqaale kagama horumarsaneen dhisme iyo bulsho kama horumarsaneen aqoonta meelaha qaar baaba ka horeysay xorriyaadka meelaha qaar baaba kaga horeysay xuquuqda insaanka iyo de isticmaal baaba hay isagoo xuquuq insaan iyo xorriyad midnaba dee iyo akhlaaq saddexdaa qodob midnaba uguma jirin laakiin awooddu waxay timid markuu awooddii ku qabsaday ayaa waxaa meesha yimid in qofkii caddaa oo isagii sidii ay lahayn falaasifadu waxay lahayd qofka laga guuleystay inta badan wuxuu xiise u hayaa dhaqanka qofka ka guuleystay oo wax walba qofka ka guuleystay uu haysto inuu waxaas ammaan yahay ama isku ekaysiintiisu inay qiimo tahay ayuu qaadanaya marka horta markaasay bilaabantay iminka caalamka haddaba haddaynu ka horumarno maxaa lagu kala xukumay dadkan la leeyahay may horumarin ama waa dunida saddexaad ama waa dunida labaad ama waa dunida koowaad xoogga waxaa iminka kala saaraya qodobka ah dhaqaalaha waxa laga yaabaa
duwalka saddexaad inay akhlaaqda iyo xuquuqul insaanka kaga horeeyaan dowlado badan oo caalamka sheeganaya maanta inay yihiin dowladihii ugu horumaray caalamka koowaadka laakiin ninka waxa xooga waxaan wax kala saaraya waa dhaqaalaha iyo awoodda tiknoolajiyad oo loo adeegsaday awood ciidan ama isku geynba technology-nan oran awoodda aqooneed iyo xogeed ay bulshadaasi leedahay way ka hub fiican tahay way ka technology fiican tahay way og tahay bulshadani halkay soo marayso iyo waxay leedahay oo dhan dhaqaale ahaan way saameyn kartaa hub ahaana way ka xoogan tahay marka saddexdan xorriyadda iyo xuquuqul insaanka iyo akhlaaqda saddexdaa iyadoo oo meel iska dhigay labada iminka xoogga la saaray caalamka lagu kala saaray waxa weeye waa dhaqaalaha iyo aqoonta waxa soo raaca waa horumarka ay bulshadaas haysato horta iminka caalamka saasa wax lagu qaybiya laguma qaybiyo xuquuqda iyo xorriyaadka iyo akhlaaqda xuquuqda iyo xorriyaadka marka laga sheekeynayo waxa laga sheekeeyaa bulshada caalamka aynu ugu horumartay horumarkii la siiyey siday u aragto xuquuqda siday aragto xorriyaadka oo bulsho xorriyaadku waa maxay xorriyaadku waa qofka bulshada uu dhex degan yahay waxa looga yaqaano xorriyad in uu sidii si siman ay u helayaan bulshada wixii ka wada mamnuuc ahaa inaanu qofkaasi ka dhigan xorriyad laakiin wixii ay bulshadaasi isla ogolayd inaan si gaara isaga loogu diidin ama si cirqiya loogu diidin ama si midaba loogu diidin saasay xorriyaddii u tahay wax kala duwan oo bulshada meesheeda lagu qiyaasayo qolo dadka ragga guursaday xorriyadu haystaan qolana dee waaba ka xaaraano in iyagii xorriyad looga dhiga ma marka lixdaa miciyaar ayaa horta marka horumarka iyo dib u dhaca lagu qiimeeya xagga haddaan kaa weydiiyo badanaa waxaa jira dhaqan la dhacsan yahay wadigii sheegayo magaranaysaa badanaa ninkan guulaysto unbaa lagu dadeedaayo oo la jeceliyay in magaranaysaa sidiisa hore la noqdo marka waxaa jira wax kastoo ninka cad sameeyo wax weeye wax horumaro oo magaranaysaa wanaagsan baa loo arkaa badanaa dad badani bal halkaa ka war horta aynu siduu ninkan caday ama sidii soomaalida u jirtay sancadaalaha inagu soo galay bilowgii isticmaalku markuu wadamada caalamka yimid ama wadamadan afrika badankeeda uu qabsaday soomaalida berigaa nooleed waxay ahayd soomaali iyadu isku filan wixeeda haysataa qofka soomaaliga aanu cidnaba waxba uga baahnayn bulsho ku dhaqan caalamku wuxuu uga baahan yahay aanay jirin xoolihiisii uu haystaa dhirtii uu haystaa qaabkii wax loo daweysanayay uu garanayaa wax badan oo dibadda kaga xidhan aanay jirin deetana qofka soomaaliga isku filan ee isagii ku faanaya naftiisa iyo soomaalinimadiisa afrikaankii adoon u haysta carabtii dad jilicsan oo aan awood badan lahayn u haysta cadaankiina dee wax sidii cuduroo kaleba u haysto sancadaale markaa uu bixiyey ayaa joogay marka cadaankii markuu yimid dadka aad iskuma dhex gelin dadkaasina mabay u ogoleenba inuu isagu soo dhex galo awlaadoodii ka dambeysay iyo jiilkii markaa dee kobcayay waxay arkeen wax badan oo faa'iido oo uu wado ama aqoon ha noqoto ama caafimaad ha noqoto ama awood ciidan oo dee la dhacay oo dee qorigii loo baahday iyo markaa wadanka soo galay isagu soo galiyay oo loo baahday dee qofkii ugu baahan yahay intuu qorigii ka qaato cadaankii inuu dadkii kale Soomaalida kale uu kaga xoog yeesho iyo dee wada shaqayntii markaa dhex martay ay dadkii markaa ay u soo dhawaadeen cadaankii iyadoo markaa hore loo haristay habaar oo meeshuu maro iyo wuxuu wax ku cunaba la aasiyo aan loo dhawaanayn ayaa markii dambe waxay noqotay in la tacaamulo oo arday loo noqdo jiilka ardayda u noqday haddana cadaanka may jeclayn iyaga oo wax cadaan ay ku jirto cadaanka inay haybadu hayaan leeyihiin wax wanaagsan bay isaga haya haddana muu wada hayn cadaanku san uu imika maanta yahay jiilkii saddexaad ee aqoon-yahanka ah ama aqoonta bartay ama dee kore ama dee dhishashkan iyo dee waxan ay soo gaadhin technology soo gaadhay waxay arkeen wax kastoo ay u baahan yihiin baynu cadaanku xidhan yahay dadna meesha waxa soo galay rahabadan aynu cadaankii uu yahay wixii khayrku waxa uu ka yimid dadkan cadaanka maanta professorka afrikaanka isaga oo dee PhD oo dee maanta dadkii aqoon iyo cilmi lagu tuhmayay ayuu haddana inanka cadaanka wax baranaya isleeyahay bal waa taas wax ku dhaamo u hayaay bal isaga dhageyso marka way aad bay dadka aqoonta leh ama dadka inta badan la dhaqmay ugu badan tahay inay dadka cadaanka ay aad u qadariyaan barigoorna dee waxba la gaal iyo wixii jecel oo jab dee nacayb halka laga gaadhay iminkana dee waxa loo haystaa wax wal oo uu ka yimaado xagiisu inuu master khayr isagu yahay waxaad kaloo sheegtay reer galbeedku ama dadkan maanta caalamka koobaad lagu tilmaamo inay yihiin dadkan magaranaysa hogaamiya inay caalam kale ku hogaamiyaan xagga wax samaynta iyo wax soo saarka xagga haddaan markaa weydiin kaa weydiiyo
wax kasta cusub caalamka lagu soo kordhiyaa ma wax weeye ma wax wanaagsan oo horumar taraya meena jirin marmar badan in wax la soo kordhiyo waxaasna magaranaysaa noloshii aadamaha dib u ridaba sababtana kale hadii hub nuclear la keeno kala manaasayo ee dabar goynayba aadamihii oo dhan wax kasta cusub markaa ma wuxuu yahay horumarka iyo wax soo saarka markii isku xidhan horta dhinac marka laga eego su'aashaadaas haddaan dhinac kale ka yar istaagay intaan horta si toos uga jawaabin waxa meesha taala tallaabo kasta oo hore loo qaado ama waqti kasta oo hore loo socdo ma horumar ba sanad kasta oo inoo soo gala guud kasta oo ku soo kordha ma horumar iyo hor socod ba noloshu masalan sare loo kacaya horta fikirka u baahan ee aad looga hadlaana wata فلسفدي أدان ابن خلدون أما غريغي بحرابة دسي أمسنين أما ابن خلدون بقى نكون نقضه waxay yiraahdeen adduunku waa garaan ama adduunku waa qori isku dhiib qofku uu dhashaa isagoo awood daran buu dhashaa uu koraa inta uu yar yahay wuxuu u baahan yahay cid caawisa aqoonsiisa markuu koro oo kobco fikir iyo xoog iyo awood buu la yimaada isaga qoys aasaasa isaga dadkii waaweynaa isaga gacanta ku haya dadkii yaraa isaga soo koriya dadna wuxuu gaaraa marka dambe isaga baa dib haddana uu awood dareynaya marba uu ka sii daraya awoodiisa hoos buu sii socotaa ilmihiisa soo kacay marka halkay nolosha ku jirtaa waxa weeyaan aabahaasi nololkiisii awood wuxuu soo sharay qayb soo talaabsaday qaybtaasi ama horumar ha noqoto ama dib u dhac ha noqoto ilmaha uu dhalayna halka uu qoriga ugu dhibay marka uu isagii u daalay way qori isku dhib ilmahaasi lama damaanad qaadi karo inuu abiye ka fiicnaanayo lamana oran karo abiyiba ka xun yahay waa laga yaabaa isagii abiyiina sameeyay waa laga yaabaa isagu abiyiina ka fiican yahay waa laga yaabaa abiyiina ka fiicnaa waa laga yaabaa waxyaabaha qaar abiyiina ku fiicnaa isna wax ku fiican marka horta qiimeyntan wax kasta oo cusub wax fiican ba hadayna ka dhigno salaan nolosha waqtiga horumarka keenaya haday nolosha ka dhigno garaantaasna wax kasta waxa lagu qiimeynaya marna horaad u socon kartaa dib baad u noqon kartaa halkaagii baad taagnaan kartaa marka wax kasta oo cusub maaha horumar wax kasta oo tagayna maaha dib u dhac imka caalamka wax laga dhigay wax kasta oo cusub inuu horumar yahay xataa iska dhaaf dadkii waaweynaa imka waxaan aragnaa intaas oo munadamo ama intaas oo organization oo u ololeynaya caruurta in xuquuqdooda la ilaaliyo minaan arag weli organization ama ay gaala leedahay ama cid kale ay leedahay oo u ololeynaya dadkii waaweynaa ee da'dahay iyaguna u baahnaa in la ilaaliyo xagee laga beetay tabtaas waxa lagu socdaa wax kasta oo hore waxaynu u ilaalinaynaa inuu yahay wax dhaxala laakiin oo ma ilaalinayno inuu shay qiimo leeyahay marka dadkii waaweynaa xataa waxa laga dhigay inuu yahay wax dhaxala ee aanu ahayn shay qiimo leh oo in la ilaaliyo iyo in la raacayo xagga diinteenu ay ucbudu allah wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayn ihsan halka diinteenu caabudaada ilaahay iyo in ilaahay loo shariik yeelin iyo isku xidhay in waalidkii loo samafalo wadii qofkii ku soo koriyay inta ku soo lagisay marka shay kasta oo cusub maaha wax wanaagsan shay kasta oo tagina maaha wax xun tan loo sawirayo badanaa in wax cusub wax kasta cusub laga dhigo inuu horumar yahay badanaa waxa laga wadaa malaha shirkadaha iyo ama dawladahan badanaa capitalismka le badanaa shirkadahan wax soo saarka leh unba ka faa'iideeya la moodaayo marka dadka ma lagu gumeynaya ma lagu gumeysanayaa wali aad horta mid waxa jirta imka mobile baad seetaa mobile cusub soo baxay kii hore wax laga yaabay inaanay wax ku kala gedisan yihiin marka aad eegto wixii aad ka faa'iideysanaysay inay isku mid yihiin haddana waxa laga yaabaa ka cusub in queue loo galo oo dad ku dhintaan isagoo qofkii magacii qofkii isagoo oo dhaqaalihiisa iska kooban yahay inuu ku xisaabtamay gaariga wato iyo labiska uu labisan yaani waxa nolosha noqotay madaahir in wax lagu qiimeeyo madaahir halkan laakiin muhiimadda u weyn ee aan qodobkan xoog yar saaray waxa weeye aan ku soo gabagabeynaya qofkan inuu leenahay wuu horumaray maxaa horumarka laga doonayaa horta horumarka waxa laga doonayaa leeyahay waxa soo horumaray inuu qofkan isku filnaansho dhaqaale isku filnaansho horumarineed isku filnaansho aqooneed isku filnaansho xorriyadeed isku filnaansho xuquuq insaan oo bulshada meesha ku dhaqan ay si siman u wada helayso qof walba iyo dhaqan bulshadaas oo dhan isku xidhkeeda iyo wax qabadkeeda caalamkan waxa lagu bixiyaa in gole dadku ay isku yimaadaan oo dadka jaarka ay community intay sameystaan ay iska xogayaan oo iska warhayaan oo qofkiisa jaarka ayaa malaayiin lagu bixiyaa marka xagga waxa la madaabeeyay inagu ka horumarsannahay halkan inagu waynu haynaa waa si fiican xagga waa si fiican halka waxa idin oranka inagu waynu haynaa waxyaabo badan oo inagu hayno oo ama diinteenu ina bartay ama dhaqankeenu ina baray ayaa muhiim aynu haynay baa jiro aynaan
tirsan karin inaynu laynaga hormaray oo dee kuwa hormaray ay maanta higsanayaan kolley waxaa jira dad badan wax badan oo inagu aan ka hormarsanahay reer galbeedkana laga hormareen innaga maanta haddii layna qiimeeyo waynu horumarsannahay waxyaabaha qaarna waynu ku dambaynaa waa si wacan haddaba kolley waxaan la wadaagi doonaa isaguna cabdifataax waxaanu inoo ka horumarsannahay weli aynan gaadhin ganacsa reer galbeedku aad u maasanta Ridwan wali waxaan mikrofon ku wareejin lahaa Mr. Liban oo aan hayay dadka aad uga soo horjeeda liberaaliyadda iyo capitalismka iyo aragtidan mu'amaradana aan misanayada Liban waxaan weydiin lahayn wali inuu sheego reer galbeedka badana mawaaqif buu ku doodaa ama mabaadi buu ku doodaa mabaadida waxa la moodaa inuu marmar badan munaafaqadayo oo moodaa inuu dimuqraadiyadda ku doodiyay meelaha kale la dagaalamayo isagoo kale tirs taageeraya meelaha qaarna maxay si toos loo dagaalamayo ama xuquuqul insaanka meelaha badan jibinayo oo Faransiiska inuu naqaan maxay ahayd isticmaalka dawladda isticmaalka caalamka ugu weyn haddana lagu qoranayo waxa weeye waa qalcad xuquuqul insaanka iyo halkan baa looga yimaadaa maxay ahayd xuquuqda aadamaha balina isaguna arrimaha naga sii faalo ku soo dhawliba mahadsantahay Suhayb aad baad u mahadsantahay horta marka la yiraahdo horumar iyo marka la yiraahdo dib u dhac markii maskaxdaada waxa ku soo dhacaya fikrado kala duwan fikradaas qaarna sax way noqon karaan qaarna qalad way noqon karaan waxyaalo badan oo sax ah waxa jiro dadku ay ka wada mideysay inuu qeexida horumarintu waxay tahay amba horumarka bulsho waxay tahay amba horumarka dhaqaale waxyaalo badan aan la soo khilaafsan yahayna way jiraan laakiin midka imika jira casrigeena waxa kamid ah in waxyaalaha horumarka loo aqoonsan yahay ay tahay uun waxyaalo meel kale ka yimid amba dad kale ay dabada ka reexayaan oo waxyaalaha inaan horumarka inagu aynaan u aqoonsanayn muslim ahaan Soomaali ahaan Afrikaan ahaan ayaa dad kale amba dawlado kale ay u aqoonsan inay horumar tahay isku awoodna dadku ma aha wala kala dhaqaale baday wala kala awood baday wala kala publications baday wala kala jaamacada baday wala kala warbaahineed baday marka ismuqoonin baa dhacaysa oo waxa dhacaysa waxyaalaha aanad horumarka u aqoon in lagu qanciyo inay horumar tahay waxa dhacaysa culture amba dhaqan aanad horumar inay tahay u aqoon inay dawlado gaari amba inay loobiya gaari gruuba gaari ay dadka ku qasbaan inay tahay horumarin waxa dhacaysa horumarkuna sidiisaba waxa loo bedelay baad moodaysaa in ay tahay tabtii inay Ridwan sheegay in maalintii ka horeysa ay ka horumarsan tahay maalintii kale ay maka dambeysay sidaana ma aha oo dibtu waxay tahay mustalahaadkan la adeegsanayo amba terminology-gan la adeegsanayo ayaan ahayn terminology scientific oo xad leh waayo hay'adaha ka shaqeeya horumarinta kale amba u dooda amba dawladaha horumarinta u dooda waxay badan adeegsadaan terminology fadfaad oo balbalaaran oo aan marka doonaysa si scientific in dhaqaalaha u qeexdo in siyaasadda aad u qeexdo in qofkii walibaaba uu ta'wiilin karo oo dhinac ula kici karo waxyaalaha asaasiga ah waxa kamid ah in termka aad adeegsanaysa amba erebixinta adeegsanaysa ay tahay erebixin qeexaysa oo aan dhowr micno qaadanayn si wixii la isku fahmo amba ma la isku diidaba laakiin waxaad moodaa hadaad ribootidooda akhriso mar kasta in adeegsanayaan eriyo balbalaaran furfuran micno badan qaadan kara si iyaguna ay ula kacaan wax alla waxay doonaan tan uu Suhayb su'aashiisa ku jirtay mabaadiida reer galbeedku ay u doonaan mar kasta ma ka dhaba amba mar kasta xaq ma tahay inay u doodaan oo kale dawlad taariikh gumeysi lahayd ayaa lagu oranayaa waa hoyga cadaaladda ilaa maantana le Faransiiska gaar ahaan dadka taariikhda akhriyay 1.5 million Algeria inuu dilay Algeria wuxuu ku aasay nuclear ilaa maanta waxa laga laayahay bal inuu taariikhdiisii gumeystay bal dadka reer Algeria uu ka raali galiyo dadka Faransiiska imika jooga ma aha dadkii Faransiiska ee gumeystay bal inay ka raali galiyaan aabayaashoodii awooyaashood dhibtii umada ay u geysteen ilaa maantana uu diiday waxyaalaha cajiibka aad ka yaabso waxa kamid ah nin reer Yurub hadii wax la yeelayo dadkii wax la yeelayo dhan waxa laga dalbadaa inay ka raali galiyaan tii u dambeysay ururadan mayalka adeega diiniga ay ka geysteen magaalooyin Faransiiska kamid ah waxa tiyoon ayna inaga dalban ayada waxa la arkaysaa dhalinyaro fadban oo Facebook iyo xalqa Faransiiska soo wada bedeshay wadamo badan oo aan intayna madaxweynaha Faransiiska dadkiisa tacsiin iyagu tacsiidii uga horeynaya waxaad moodaa in dadkii lagu qasbayo dambi ayna gelin
inay ka raali gelin bixiyaan dembi ayna gelin inay cudurdaar ka bixiyaan dembiga ummadda muslimku may gelin dad ummadda muslimka ka tirsan amba u magac sheegtaa galay oo weliba aan diintii matanin laakiin haddana waxay tahay dembi kastoo ninkaasi galaa waad ku qasban tahay inaad raaligelin ka bixiso waad ku qasban tahay inaad dadkii aad u madax saraxda waxaad ku qasban tahay inaad tiraaniyo waanu ka xunnahay adoo aaman gelin كل قصب كاسنا ما قصب فكرية لكن ما قصب قول الوجه لكن قصب فكرية وضد كي وحكاية عشان مثلا إنه نكن قيم صرايو ضد كلا مركب أسوار كي مركز إنه نكن للدليل مثلا وحوين الدنيا دي خسارتي حاجة سينا ما نكن للدليل تركيز بس ما نكستم حياة هي دليل سكده لو تعسيه هي عد كلام حياة لكن مرة اللي قلنا ده ما تنوي سوتها استعمار كي يو جومينتي مركز ده سوتها فاللي بقى نحكي لهم كويدين لها وحكي لهم كذا dowladahan badanaa lagu sheego inay yihiin caalamka koobaad ee horumarka hogaamiye dunida inay dhaqaalaha caalamka labaad ama caalamka saddexaad siiba ay dhaqaalihiisa oo dhan gacanta ku hayaan ama shirkado iyaga raacsan ay gacanta ku hayaan bal taayadana waxay nooga tahay waxyaalaha qariibka alla yaabasa waxaa ka mid ah beriga hore reer galbeedku inkastoo dee kacdoonkan dhaqaale iyagu imika ay hogaaminayaan laakiin haddana beriga hore waxay oran jireen horumarka dhaqaale ee wadamada soo koraya amba wadamada afrikaanka ee aynu ka mid nahay inagu waxaa ka haysta culture-kan afrikaanimada amba culture-kan islaamnimada ayaan saamaxayn in culture-kooga iyo dhaqankooga iyo horumarkan modern-kii ay meel wada galaan oo waxay oranayeen waa inaad culture-kiina bedeshaan si horumarkan uu reer galbeedku ku talaabsaday aad u gaadhaan tii dambe way ka tanaasuleen oo dowladihii ay ku tilmaami jireen dowlado dib u dhacay amba dowlado salaanka ka dhacay ayaa iyagiiba u baahday inay dowladahani ay horumaraan oo waayo horumarkii dhaqaale weynaa ee qarnigii 19aad 18aad ay reegal waxa dhacday dhaqaalihii reer galbeedka koreey iyo shirkadkii wax soo saarka soo saaray in iyagu u baahdaan wax soo saarkooda meel ay ku iibiyaan dabeeto cid kalena ma iibsanayso wadamadii aan soo korin baa iibsanaya marka wadamada soo koraya sidii u iibsadaan waa inay dakhligii dadka kor loo kiciyo waa in laga dhaadhiyaa baahiyahan in loo suuq geeyo marka waxay qasab noqotay in wadamadii lalahaa ma horumari karaan in iyaga xataa laga caawiyo inay qadar horumarina ay ku talaabsadaan qadarka horumarina ma aha marnaba ma gaarsiinayo wadadan reer galbeedku ay gaadheen laakiin wuxuu saamaxayaa inay noqdaan dad consumers oo mustahliko wixii qaadanaya marka waxa lagu diyaarinayaa tabtii suuq aad u noqon lahayd waa kuwa keenay ereygan madax buuxinta ee malaaluushka ee wadamada soo koraya developing countries yani xataa waxa laga yaabaa inagoo Soomaaliya oo aan xataa salaanka horumarkaba meel aan ka haysan xataa ayaa laynagu daraya wadamada soo koraya waa madax buuxinun waa malaaluushkan waxay uga dalayeen in aad noqoto suuq loo iibgeeyo alaabahooga iyo badeecadahooga marka in mustalahaadka lagu ciyaaro oo adigiina aad mustalahaadka aad dhab moodo waa waxyaalo qalad weey midda kale aan ku dari lahaa waxa weey horumarka dhaqaale waxa la socda packages bad mooda oo horumarka dhaqaale waa koon le waa in waxa la socda cawlamadii waxa la socota culture-kii reer galbeedka waxa la socda in wadamadii doonayeen inay horumaraan ay hadafkoodu yahay American way amba American dream in la wada gaadho taasina ma khatarteeda leedahay 90-dii waynagii wayn ka wada naqaashnay ma filayaa Samuel Huntington waa kilaha hirdanka xadaaradaha amba hirdanka dhaqamada ninkii shalay taagnaa inuu dhaqankaagu yahay dhaqan laangaab oo aan meel gaarsiisanayn ayaa haddana habeenii maalin gudahood buu kulmiyo dhaqamadii baa wada hirdamay waada dhaqankaygu muxuu hirdamaaba soodii shalay aan lahayn dhaqankaagu dhaqan la tartami kara maaha dhaqankan reer galbeed haddana mar kale yiraahdeen dhaqanada hirdamayo istilaya hirdankana waxa shardi in environment amba deegaan waxa isku hirdamaya ay u sameeyeen amba ay isku garab ma yihiin dabeeto waxaad moodaysaa hirdankan hirdan jira maahe waa dhaqan kale ku duulaan way dhaqamadeena ay ku duulaan wax hirdan la ilaama jiro inaga dhaqankeenu imika hirdan kuma jirtay marxalada aynu hirdan galna ma laakiin waa inagu duulaankaas uu bixinaya hirdan si uu kaaga qarayo in duulaankan uu ma kugu wado oo imika dhan waxa xayaatadii la doonaya in sida Mareykan loo noolaado hadii qof kale weydiiso dhaqaalaha Mareykan amba dhaqaalaha waxa uu doonaya inuu noqdo amba si doonaysa inuu noqdo tabta Mareykanka horumarkuna ma aha wadada reer way mareen ma aha wadada Mareykan mareen wadooyin kala jira waxay tahay inagu inay aynu eegno ma aha inaad dhaqaalahan furfuray Mareykanku ay sameeyaan inaad qaato ma aha inaad socialism-kan aad qaato laakiin waxa weeye wado adiga ku eeg oo dadkaaga faa'iido u leh oo dalkaaga aan waxba yeelin inaad adigu hesha ayaa muhiim ah waa si wacan
haddaba haddii aad ka fekertid badantaada oo magaranaysaa aad diidid maxaa globalizationka iyo waxyaalahan magaranaysaa American way-gan aad istiraada ka leexo ma lagu ogolaanayaa ama space ma helaysaa aad ku magaranaysaa xorriyad aad waxaad dooratid aad ku samayn kartid sida waxaa jira sida dad badan aaminsan yihiin aragti shirqool oo magaranaysaa iyadoo mararka qaarna loo adeegsado magaranaysaa wax kastaba in la dhahdo waa mu'amaradii ama waa shirqoolkii laakiin haddana maxaa ka jira bal xorriyad intee leeg qofku u haystaa inuu ka leexdo maxay ahayd America weeyda la sheekay anuu dadka horta aragtida shirqoolka aaminsan baan conspiracy theory waa wax jira si kasta aan u aaminsanaade laakiin haddana waan ka soo horjeedaa in dhammaan dhibaatooyinka ay haysta dhammaan ummadda muslimka xaaladan aan cadow iyo saaxiiba ayna ku farxaynay ay ku jirto in lagu fasiro gacan kala waxan ina wada gacan kala ina walaaqaysa marka waxaan ka soo jeedaa in tafsiirka wax kasta in loo nisbeeyo qofka kale laakiin haddana taasi ma diidayso in aragtidan shirqoolku ay tahay wax jira daliilada loo haya nin baa bari la weydiiyay waxa la yiri wadamadan islaamka amba wadamada soo koraya dimuqraadiyadu maxay uga hirgeli lahayd markaas uu niyo su'aasha waxa wacan baan filayaa in la bedelo la ilaa horta ma loo ogoliyay inay ka hirgasho aragtida shirqoolka waxa cadeynaya wadamada reer galbeedka marka aragto wadamada soo koraya tabtay xukuumadahooga ayna ugu ogoleen shacabka halka degan inuu doorto ku doonayo waxay doonayaan in la doorto ka iyagu doonayaan ka iyaga masaalixdooda iyo interest-kooga fulinaya oo dhammaan boqorkii sano ma la soo dhaafay inta inqilaab ka dhacay wadamada soo koraya ay ka dambeeyeen gacmashay waliba Mareykanku waxa kamid ah inqilaabkii 70-yadii ka dhacay Vietnamtii koonfureed waxa kamid ah 1953 inqilaabkii lagu riday xukuumadda Iran musaddaq ay dadku ay doorteen waxa kamid ah inqilaabkii 73-kii lagu riday madaxweynaha Chile xilka uu ku qabtay janankii dictatorshipka ahaa marka nadariyadan aragtidan shirqoolka waa aragti jirta waayo siyaasad oo dhan baaba ah inaad u fuliso wixii sidii adiga ay kugu hirgalayaan haday tahay xataa shirqool marka shirqoolkii haday wax kugu hirgalayaan waad ku fulinaysaa laakiin saahana kale saanaha aad sheegtay aan garanaysaa in aan loo ogolayn shacab kasta inuu doorto cid hogaaminaysa de kulley awoodaha caalamka dawladaha awoodda caalamka haysta ama jaaraadan ama kala haadaan waxay ka leeyihiin maslaxad iyo damac baa ka leeyihiin marka inay isku dayaan inay ka doonayaan ku keenaan de kulley garbe u leeyihiin ama waa abada waxaad ka leedahay maxay ahayd maslaxad gaara iyo damac gaara laakiin minti haddii aad dowladid ka doonaysay minti ku soo duulaan bay garanaysaa ka maye horta anu ma diido markaasay ka dhaxeynayaan baldola sax markasta ma diido horta siyaasadaba ay inaad chance aad ka faa'iideysato dayacanaan aniga dayacanahay kala daadsanahay ay ka faa'iideysanayaan laakiin su'aasha isweydiinta le waxay tahay ma ahay qof iska celin kara hadda ma ahay qof u babacdhici kara ma ahay qof ideologies kana ay aaminsan xataa qadar yani aqoontiisa ama heerkiisa fikir waxaan ku fahmi karaa ani dadkaygu waxa iska badan wada caamo dad aan aqoon baran marka ninkan ilaa aniga maanta waan ku horumarinaya amba dhaqaalahaagan ka talinaya amba donation baan ku siinaya niyadiisu ma tahay inuu i horumarinayo mise wuxuu i horumarinayaa inuu noqdo consumer alaabtiisa inay iibsadaa amba badeecadiisa loo soo dhoofiyo marka nadariyada mu'aamaradu waa wax jirta weey waxyaalaha laynagu qaldo waxa kamid ah human development dadka la horumarinaya iska daa dadkii waxay gaareen termin insaani insaankii marka mustalahan insaankuna uu ka shaamilsay mustalahii dadka waxa lagu dhex qarinayaa horumarkii dhaqaale ay ku leeyihiin waan ku horumarinayaa horumarkii dhaqan horumarkii bulsheed waxa soo dhanba laakiin waa waxay ku beeskarayeen ideologies-ka ay leeyihiin qodob kaliya ma ku soo gabagabayn lahaa waxaan ku soo gabagabayn lahaa waxa soo dhan waxa loo adeegsanayaa warbaahin baa loo adeegsanayaa qalabta warbaahintana ay reer galbeed ku leeyihiin amba reer galbeed yaanan oranay dadka siyaasadan haga ay leeyihiin waa qalab aad u balaaran weeyay waa qalab la gacmo aad u dhaadheer qalabkaas oo dadka kaga ciyaaraya maskaxdii iyo wacyiga iyo baraarugoogii nin baa cisho dhaw wuxuu soo qoray hadaad aragtaba yiri filimkan Titanic hadaad daawato marka kama dambaysta adoo waxaad ka baxaysaa filimkii u murugaysan amba u ooyeeba actor iyo actorada waa markab dhowr kun oo qof ay saarnaayeen dhowrkii kun oo qof baa qarraqmay dhowrka kun oo qof ay qarraqmay
wax naxariisa uma haysid laakiin naxariis waxaad u haysaa aktarkii aktaradii qaraqmi gaadhay yacni laba qof dhibaatada soo gaadhay ayaad uga murugo badan tahay intii kale innocent people-ka ahaa ee ku geeriyooday meesha sirtu waxa weeye waa halka focuska la saaro ninka mukhrijkii wuxuu gartay amba wuxuu ku guuleystay inuu kamarada ku haya aktarkan iyo aktaradan waliba aktarku waa qof dhaqan xun qof khamrila laakiin haddana kamarada lagu hayay iyo aktarada ayaa adigii kaaga dhigtay markaad filimkii dhamayso qof murugaysan oo u ooyaba amba dalbanayaba inaan aktarkii aktaradaasi waa wax noqon halka malaayiintan qof ee kale ku geeriyooday aan tan ka lahayn taas waxay cadeynaysaa in miidiyaha uu kaaga dhigi karayo wax yar wax weyn halka waxyaalihii waaweynaa iyo dhibaatooyinkii waaweynaa ee ummadda ku dhacayay iyo dagaaladii dhacayay lagaaga dhigi karayo waxaan waxba hayna waxaan micno ahayn marka waxaan oo dhanba waxay u adeegsadaan bin qodob kale kusoo koobayayo ah dad muslimiin nahay inagu amba Soomaali baan nahay dadka jira waxay doonayaan iminka in ay naqdad amba in iyagu ay isshaabuugayaan waa saxo wadcigan aynu ku noolahay wadci sax ma taa weynu wada aaminsanay waa inaynu ka hormarnaa laakiin sidee aynu uga hormarnaa waxa la yidhi shimbiruhu qorqabad biyo kuma qurqurayaan Maraykanka iyo usha inala dul taagan bay inagu turaadkeena aynu naqdi aynu ku sameynaa mise waxa loo baahay inagu marxalad nabada oo xasiloon aynu waxyaalaha qaldanaya turaadkeena iyo dhaqankeena iyo sidoo noolnaan ku jiro inay dib u eegis aynu ku sameyno mise inagu pressure ma laynagu hayo oo wada argagixiso aynu noqonay oo wada dad markasta la eedeeyay aynu noqonay baan waxaynu u baahanay inagu nabdoon xasiloon inay problemskeena aynu ka wada hadalno dibna aynu noogu noqon marka qaar waxaan oran karaa haddii turaadkan ama arrimaha kala balwaaska jirta dadka si qayb qaadanaya inaad dhulka sii gashid inaad markaas ka qabatid maasa laakiin waa ma la saameynaya waxaan oran karaa liibaan wuxuu maasa inaga masax sawirkii ay sheegaysaa haan maasa ninkii caday leena macaanay maasa waxaan ugu caliyay sawirkeena caadiga ah originalkiis ninkii Soomaaliga ahaa jeedin dhulkiisa in calaam ahayd san cadaalaha waarkeena kan kale maxay dagaalka aad oo masad liibaan waliin waxaan wareeg lahaa oo frank soo wareejin lahaa saacadaha oo soo maxay ahayd la wadaagi doonaa dhaqankeena hadeen nahay Soomaali ama dadkan nahay dadka muslimiinta ama dadkan ugu sheegaba caalamka saddexaad ee lagu sheegay inay ay dambeeyaan dhaqankooda miyuu ku jira wax horumar ah sababna dambeena aad taxsan sheegay waad maasantahay Suhayb wato su'aal yar adag runtii yani meenu horumarsanay dhaqankeeni horumarka lagu noqdo ma waxaynu ahayn bulsho horumarsan oo ma barigaas aynu horumarsanay mise maanta aynu horumarsanahay runtii waxa weeye wax laga bixin karaa jawaabo laba dhinac dhinac marka la eego barigii hore ay sidaynu maanta nahay ka horumarsanayn dhinac marka la eegana dabcan maanta aynu bariga dhaanaa laakiin waxa ku xiran tahay kulba dhinac laga eegay horumarka haddii laga eego sidii uu sheegayay qodobadii uu sharaxayay tiirarkii horumarka kala duwanaa de qodobada qaar baa bariga markaynu noolaayeen oo yeesheen waliba de yeesheen waxa noqonaya generation sokorka loo eego awooga saddexaad ee waxaan uga jeedaa taariikh ahaan waxa weeye waxaan ku nooleen bulsho horumarsan oo isku filan oo waxaan uga jeedaa lixda qodob markuu sharaxayay qodobada kale waxa loo socdo wuxuu lahaa waxa weeye isku filaanshin la gaaro marka haddii bulshadu ahayd bulsho isku filan cuntadeeda cabitaankeega isku filan waxa weeye dawo dhaqameedkeega iyo haddii cudurro meesha ay ka dhacaan saameyn karayo islaha waxa weeye waxbaad ka qaban kartaan oo dawo dhaqameed haddii mararka qaarkood roob kusoo degdegayo ama ka raagayo ama dabaylaha iyo sida u dhacayaan xidigiis waxa weeye iyo cimil awaal labadaba waxa weeye laga heli karay waxaad moodaa in marka xilliga ay noolaayeen baahi uga baahnaayeen deegaankan ay iyagu waxa weeye ay u ahayd mid ay ugu dhantay laakiin maanta markaynu joogno haddii markaa la barbar dhigo inagu maanta maxaynu haysanaa oo kaliya sharaxayo waxaynu noqonay shacab gebigiisuba adeegsada wax alla wixii loo keeno marka dhinaca marka laga eego kuwa hore inaga maxay horumarsan marka arrimo kale la eego tusaale ahaan teknolojiyada iyo waxyaabahan la taaban kara ee maanta adduunka horumarka indicatorska waa ama tilmaamaha waa waxa la oran karaa maanta inuu dhaana dhisma ahaan iyo gabaad meel laga galo maanta la dhaama biyo nadiif ah in la hela maanta u dhowdahay walow aan la wada waxa weeye aan haysan caafimaad in la wanaajiyo maanta in u dhow laakiin lama haysto mushkiladda laakiin waxa weeye maxay
ma waxaad adeegsanaysaa waxaagii mise waxaad adeegsanaysaa wax cid kale dabcan maanta sidii uu sheegayay libaanow de waxa weeye adduunku wuxuu noqday adeegyin baa ka wada jirta wax kasta uu isku furmay kii meeshii la gaadhina weli hadda waxa weeye maynaan gaadhin keeniina waynu ka tagnay dad waxaan dhexe haabanaa markaa meel dhexe ayaynu dhexe haabanaa waa si waxaan waad mahadsantay ka waran haddii aynu garanaysaa su-aasha horumarka un aan dhan kale ka eegno oo aynu sport bandhigno qaabkan laynoo sawiro garanaysaa ama ay noo dhigaan dadkan garanaysaa caalamka isku sheegay inay yihiin iyagu caalamkii koowaad oo xagga horumarka hogaamiya qaabka ay noo dhigaan ee ah inaynu wax kasta zero ka nahay taas ma dhaba miyada jirin waxyaala aynu inagu ka horeyn karayno ilaa imka ayna gaadhinba iyagoo reer galbeedka laftirkiisu oo aynaga ku jira ama dhaqankeenna ama diinteenna ama ku jira maxay ahayd horta dhaqankeena iyo diinteena way isleeyihiin waxa weeye qodobo waxaa jira runtii marka saad sheegtayba adiguba wixii maaha laskuma wada qaadi karayo oo waxaa jira qodobo aynu ka wanaagsannahay inagu dee wadamada horumarka lagu tilmaamayo ee la leeyahay wadamada horumaray tusaale ahaan arrimaha waxa weeye ilaa hadda qoyskeenii waa qoys isku xidhan reerkii waa reer isku xidhan jaarkii waa laga yaabaa in laga warhayo wada sheekaysigii bulshada sida xortaa loo sheekaysanayay waa wax jira qofku inuu qofka xanuunsan soo booqan karo inuu ka warhayn karo waa qodobo dhaqankeenu iyo diinteenuba dabcan ay waxa weeye dhiirigelinayaan ilaa haddana inagu sii hadhayo mudana in lasii joogteeyo weliba haddana magaalada marka lasoo galay ay wixii yaraanayaanoo teknolojiyada iyo adeegeyntu ay keenayso qofkii isaga iyo mobile sitay inaanu ka warhaynin xaafadda wali ka warhayn jiray aanu ka warhaynin laakiin ay noqotay qof isagii isku mashquulaya dhinacyada qaar marka la eego de waxaa taamay gaarin iyagu waxa weeye qoyska dhexdiisii ixtiraamkii qofkii weynaa ixtiraamkii waalidka ixtiraamka macalinka waxaa kala haya xeer baa kala haya laakiin uma aha dhinacooga ethics iyo akhlaaqiyaad ee laga yaabaa inayna qaarkood aanay wahayn dadka isku wada jiraan dabcan laakiin qodobada marka la eego dad waxaan ka horeyna oo weli hadda waa waxyaabaha aynu ka sii haysano akhlaaqiyaadkeennii hore ama dhaqankeena aynu kusoo gaarnay ama diinteennu wada dhiirigelinaysa laakiin markay noqoto dhinaca kale ee qodobadan la taaban karaya ee teknolojiyada iyo tilmaamayaasha kala duwan ee horumarka ay u dhigeen qodobadaas oo dhan iyo ku dar weliba xurriyadda hadalka waxaa laga yaabaa in aynu mararka qaarkood ka yarseyd caleeno aynu yaro dheerayno laakiin bulsho ahaan xurriyaddeenu waxa weeye qofku siduu doono u hadli karaa meesha doon wax ka sheegi karaa way kooban tahay ama ma dhacdaba in mararka qaarkood qofka la cabriyo hadalkiisa la cabriyo ha noqo waxaan ku wanaagsanay sidoo kale waxyaabaha dee dabaqada ma lihin haddii saa lagu sii wadana way sii wanaagsanaan tahay walow marka magaalada lasoo galo kolley ay duruufta keenaysa mararka qaarkood in la soo gaari waayo haddana weli mujtamaceenu maaha mujtamac kala sarreeyo oo dabaqadaasi ay aanay u gudbin dabaqadaasoo dabaqadaasi ixtiraamto dabaqadaasoo xataa madaxda dee dowladda iyo madaxdeena kaleba biqabdi nadar tayadooda iyo waxaasi laakiin waxa waa gaari kartaa qofkii iyo meesha doonto ayaad ugu tegi kartaayo magaciisa aad ugu yeedhi kartaayo inkastoo haddana qofka ixtiraam mudan yahay guud ahaan haddana maaha ma jirto ciidhi iyo cabsi aad ka qabto inaad u tagto ama aad waxa weeye aad u sheegto ama aad saa ula hadasho qodobada noocaasa oo qodobada ay dhiirigelinayaan horumarkana waxa laga yaabaa qayb ka tahay marka waynu ku wanaagsannahay laakiin haddii laga eego dhinacii kale aynu ka taagnay in ay sharaxayay ridwaan ay sharaxayay dabcan qodobadaasi runta marka la sheego waxaan u baahanay inaan meesha ka dhaqaaqno oo dabcan sidii markaynu soo galaynu ka sheekaysanayna qofka Soomaaliyeed wuxuu ahaa qof isku qab weyn oo dadkan ku xeersan oo dhan u arka waxa weeye dad soo ka sarreeyo marka ma jirin ba xilli uu tartan la galo qof kale oo waa wuxuu isku haystay inuu ka wada sarreeyo maadaama wuxuu u baahan yahay helayo qol wuxuu yaqaanay carab wadada liitaan saasuu yaqaanay qolo wuxuu yaqaanay indhayar qolo wuxuu yaqaanay afrikaan qolo wuxuu yaqaanay waxa weeye maxay dhahaneen wasan cadaaliye gaal iyo xabashada marka waxa cid kale u soo hadhay marka adduunka mijtadi wareer u qaybiba wata keentay maanta markii qabweelidii qofku inuu ay luntay inaynu xataa dhanaysan kari weynay maxaa lagu horumaraa maxaase lagu dib dhacaa waxaan tusaale soo yar qaadanaya waana dareenka waxaan qofka hadduu dareensan yahay inuu dib dhacsan yahay waxyaabaha uu ku dib dhacsan yahay horumari karaa haddaanu laakiin dareensanayn weligii ma dareemayo ama isma dareensiinayo inuu horumar u baahan yahay waayo sidan buu u arkayaa moogtahay uu ku jiro hadda ayuu u arkayaa horumar wuxuu u arkayaa inuu shalay maanta ka wanaagsan isagoo sidiisii ka hooseeya laga yaabaa waxaan soo qaadanaya ku yar baa jira rakaab baan hayno markaa meel dooxaan marinay markaa wuxuu dooxii wuxuu baa laga sheekeeyo kii yaraan baa intuu harrahay igu buuri waa aad buu yaro steesin meelaha waxaan doox maaha wallahi
kii yaraa loo eego adar maxaad uga jeedaa ma wallahi doox maaha muri oo maxaa dhacayo dee mise qashin ma yaalo muri marka isagu caqligiisa iskuul buu tagaa qaran kale xaafadda ka degan yihiin wax ka soo talaabaa walba waxa weeye dooxa laakiin wuxuu arkaa maalin walba dooxa soo qashin buuxo deedna maalintii uu koray ilaa hadda oo 8 jir 9 jir uu yahay wuxuu maskaxdiisa ay la qabsatay inay isleeyihiin dooxay qashinku sadaradeed muxuu ga baahanay marka dooxa qashin ka qaado waayo de maba yaqaan wax ka wanaagsan tan wuxuu boodayaba dooxan in lagu talagalay maxay in qashin loogu talagalay marka waxa weeye bulshadeena badankeena saas oo fikirayaan oo waxa weeye qofku ma dareensana dhibta uu ku jiro sadaradeed dhibtana qofku wuxuu dareemaa markuu barbar dhigayo waxyaabo kale marka waxaynu u baahanahay inaynu ha ayuu dhibtan ku jiraya taas ku jiraya laakiin hadduu qofku dareensan yahay waxa weeye in uu waxa weeye wax ka dhiman yihiin uu raadsanaya waxa ka dhiman wixii uu haystana uu ilaashanaya laakiin haddayna uu kala socnayn weligiina horumarku uma kala socnaanayo dib u dhacna uma kala socnaanayo laakiin wuxuu arkayaa in dhinacii loo dhaqaaqo inay noo dhaqaajiyo oo bay maxaadana kan oo si wax aad baad maasantahay Cabdifatax waxaad noo sheegtay in ay jiraan waxaan ku horumarsanahay oo ayna ahayn qaabkan la inoogu dhigay aan garanaysaa inayna wada garanaysaa wada baahanay in la inoo soo bilaabo garanaysaa noloshiiba dib loo soo wada bilaabo oo wax badan oo aynu ka horumarsanay xataa ragabadka jiraan isla markaana ay jiraan wax badan oo inaga maqan oo ay tahay inaynu baadi goobno aynu galno maxay ahayd hawsheedii marka anigu waxaan xagga ra'yi baan ku doorsan lahaa ra'yi iska mutawaadica dhibaatooyinkan haysta ama mushkilooyinkan haysta anuu say la tahay hal mid un baa magaranaysaa u sababa ama magaranaysaa u guddiga waxaan kalena waa natiijooyinkii magaranaysaa arrintaas waxay tahay ama haddaynu nahay dowladaha lagu sheegay caalamka saddexaad ama haddaynu si guud nahay dowladaha muslimiinta ama haddaynu nahay magaranaysaa Soomaali ama reer Somalilandba mushkiladeenu waxa weeye nidaamka hab maamul ayaa naga khaldan kaasun baa keenaya magaranaysaa inay arrimo badan markaa aynu ku dib dhacno oo maanta haddaad u baahatid ka hadishid maanta faqri kama hadli karaysid caafimaad kama hadli karaysid qashin kama hadli karaysid laakiin waxyaalaha yar basiid ka hor waxay ku geenayaan aakhirkii in jiro magaranaysaa khalal inuu ka jiro maxay ahayd xagga hab maamulkeena ama dawladnimadeena ama siyaasadeena inuu ka jiro khalal aad aan ka dhaxgalay waliba marka lagu daro qodobkaasi waxyaabaha mudan ee waliba de horumarkana marka dambe marka muddo la joogo saameynta fog yeelanaya de waxa kamid ah waxbarashada waxa kamid ah tacliinta iclaamka iyo warbaahinta waana labada maanta bulshadeenu ay ka sii hoobanayso runtii ay aad moodo in dhulka sii galayso kulli mas'uuliyadeedana saa sheegana waxa weeye waa hab maamulka ama nidaamkan dawladnimo aynu qaadanay ayaan magaranaysaa wali ayaan u hirgelin sidii ay ahayd magaranaysaa in la hirgeliyo haddaan tusaale soo qaato tusaalaha shirkadda mid labaad ku daro oo aan magaranaysaa soo ahaan oo kale haddaan ka hadalno dhaqaalaheenu inuu rahman yahay shirkado dibadda oo leeyihiin magaranaysaa dawladahan wax soo saarka leh magaranaysaa capitalismka ay leeyihiin yaa ka mas'uula waxa ka mas'uula maxay dawladdu meesha ka jirtay ay ahayd inay samayso wax soo saar ee wax sameyn iyada dabcan dadkii tujaarta ahaa ee magaranaysaa maqabeennada ahaa marka dawladdii markay gabtay shaqadeedii ayaa maxaa dhacay inay dadkii tujaarta ahaana magaranaysaa isku bedelaan dad dilaalina xagga iyagana ay ka ahayd inay lacagtooda maalgashi ku sameeyaan inay wax sameeyaan ama wax soo saar sameeyaan inay ka soo dilaalaan ama ay dhaqaalaheennii oo dhan gacanta loo geliyo shirkado ama waliba cid dibadda ah waa haddana inkastoo ay dabcan ay taasina jirto waxaa la odhan karaa rabitaanka dadku ama wacyiga dadku waa inay soo gaadhaan iyagu xilli ay dawladda xataa ku hagi karaan in waxaan waayo dawladdu mar walba iyadu uma shaqayn karto qaab dib ay haysato oo ay leedahay waxaa dad samay weydaana taas ayadii bannaan laakiin waa in la soo wada gaadhaa bulshadii iyo dawladdii oo aynu markaa aynu soo gaadho marxalad aynu dareenno inaynu mushkiladina haysato marka mushkiladda xalinteedii ayay tahay inay nagu gaadhgarayso marka iyadu ama ay nagu hagto ilaa xilkeeda haysa aad waana takubada anaga maqaraan aan doonaya inaan tilmaamo oo ah shacabkii bay taas ka maqantayba intaan dawladda la gaadhin shacabkii looma egmadan dadka macluumaad dareensanaba inay tahay magaranaysaa hawl ay gaftay magaranaysaa dawladda ay gaftay iyo dadka laftirkoodii baa magaranaysaa iyaga soo sameyn kara wax sameyntan ama wax soo saarkan oo badan ayaguna akhri wax sameeyaan lacagtoodii haddii maalgashi ku sameeyaan dalka gudihiisa waa haddii aqal dhisan ama dhismayaal waaweyn ay dhisaan taasina waxay sii keenaysaa fake development inuu meesha ka dhaco magaranaysaa horumar dhaalanteeda inuu meesha ka muuqdo magaalo bilaa wadooyin hadda suuqa hargeysa wada hadduu roob yar ka doo waxay noqonaysaa maxay ahayd wada dhiiqo wada uska way isbedelaysaa magaalo bilaa wadooyina bina taxtiya baabaasan haddana ay ka dhisan yihiin aqal aad u waaweyn oo magaranaysaa qofka soo galaas odhanaya waxa weeye waa meel aad u horumarsan markaan waxaas leeyahay
haddaynu dib u eegno magaranaysaa macnaha siyaasad iyo macnaha dowladnimo iyo macnaha habmaamul haddaynu dib u jeerecsano markaasaynu ciddaa qaabka cusbe aynu u dhigano aynu kula xisaabtan karayna magaranaysaa cidda kala timaado intaasaan kusoo koobaynaa xalqadiinan maanta waxaan rajaynaynaa inaanu wax ka ifinay wax ka mid a mawduuca waan u mahadnaqayaa asxaabtiiga laga qayb qaadatay barnaamijka iyo asxaabtii dugeysay barnaamijka Azam Production wixii fariin iyo faallo iyo talo iyo tilmaam waxaad noo samayn karaysaa ciwaanada aan ku leenahay baraha ay ku xidhiidho bulshadu saa iyo waxaan kaga teginaa kulan dambe xiisa leh intuu maahan gaajaysan yahay gooligaa weli